Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta sheekadeena waxaan idinla wadaagi doonaa godkii laga baqi jiray ee cabsida badnaa. Inta aanan u gelin sheekadeena, waxaan kaa codsanayaa in aad channelka subscribe saarto, sidoo kalena ha hilmaamin in aad like saarto videoga. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawasho wacan. Bari baa waxaa tuulo ku noolaa dadkaas waxa ay lahaayeen cadowgaasina lama garanay waxa uu ahaa jin iyo ruuxaan. Waxa uu yahay waxa uu ku noolaa godka. Qofkii godka aadana waa la dili jiray. Saddexdaa nin mid ka mid ah ayaa yiri waxaan aadayaa godka, laakiin markii uu godkii tagay waa la dilay. Lana garan maayo qofka dilay iyo wixii dilay. Ninkii meydkiisii oo dhiig ka da'ayo ayaa laga soo qaaday meeshii. Maalintaa wixii ka dambeeyay dadkii oo dhan way ka baqi jireen godka, maysan aadi jirin godka. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin xaabada gurtaa oo reer miyi ah ayaa wuxuu soo aaday keynta si uu xaabo u soo gurto. Kadibna waxa uu arkay geed. Waxa uu yiri waa inaan geedkan ka gurtaa xaabada. Waxa uu leeyahay xaabo aad u tiro badan, mana helayo geed ka wacan. Laakiin maanu arkayn waxa u dhowaa godkii laga baqi jiray ee dadka lagu agdili jiray. Kadibna waxa uu iska sii watay shaqadiisii. Kadibna waxa uu fuulay geedkii, waxa uuna garaacay geedkii si uu xaabo uga gurto. Cabaar markii uu geedkii garaacay ayaa waxa uu yiri waa inaan cabaar seexdaa. Waxa ay hayso hurdo, waa inaan xoogaa indhaha iskaliyaa si aan hodhow u soo kaco oo aan xaabada u gurto. Kadibna xoogaa yar ayaa u seexday oo uu indhaha iskaliyay. Cabaar markii uu ninkii hurday ayaa waxaa meesha yimi 3 nin, waxayna wateen fardo iyo seefo. Waxa uu ku kacay fardaha ciidoodii ninkii. Kadibna waa uu naxay markii uu booday ayaa u arkay 3 nin iyo godkii. Kadibna waxa uu yiri godkani maanu ahayn godkii dadka lagu dili jiray laga cabsan jiray. Waa maxay meeshan? Waa maxay 3 nin maxay doonayaan? Hadallo noocaas ayaa uu isweydiiyay ninkii. Kadib 3 nin way soo degteen. Mid ka mid ah ayaa inta uu godkii la hadlay waxa uu yiri godkaygiyo waa anigii isfur, waxaan kaaga imi meel fog ee isfur. Kadibna godkii ayaa isfuray inta uu hadalkii maqlay. Kadibna 3 nin ayaa galay godkii. Ninkii waa uu dhageysanayay waxa uu ku lahaa ninku godka. Waa uu yaabanaa oo waxa uu lahaa tolo nimankani maxay godka ka qabanayaan? Godkani sookiila lahaa ruuxaamiyo waxaas degan. Laakiin waa uu ogaaday inay 3 nin ka dambeeyaan waxaan oo dhan oo ay iyagu dadka laayaan. Meeshii ayaa iska saarnaa, maanu soo degin. Waxa uu ka baqayay in ay dilaan. Cabaar ayaa uu sugay. Waxa uu sugayay inta ay ka soo baxayaan 3 nin. Kadibna iftiinkii ayaa soo laabtay mar labaad. Raggiina waa ay ka soo baxeen godkii iyagoo leh wixii godka yimaada waanu u dhammaynaynaa oo waanu dilaynaa. Isaguna waa uu maqlayay. 3 ninna waa iskaga tageen meeshii intay fardahoodii ka haysteen. Ninkii ayaa soo daadegtay. Waxa uuna hor yimi geedkii. Kadibna waa uu maqlayay hadalkii lagu lahaa ee ahaa godkaygiyo waa anigii isfur. Waxa uu is yiri haddii aad hadda ku dhahdid, raggii ayaa kugu soo laabanaya oo kugu dilaya. Waa inaad berri ku dhahdaa. Kadibna ninkii waa uu iskaga soo tagay meeshii. Waxa uuna soo aaday gurigiisa si uu ugu soo laabto maalin dambe. Ninkii markii uu yimi gurigiisa ma aanu seexan habeenkii oo dhan. Waa uu ka fikirayay waxa ay raggani halka ka qabtaan iyo siduu u soo ogaan lahaa iyo waxa ay ka sameeyeen 3 nin meesha. Subaxdii alaasaydi ayaa u soo jarmaaday. Waxa uuna yimi godka hortiisii. Waxa uuna ku yiri hadalkii ee ahaa godkaygiyo waa anigii isfur, waxaan kaaga imi meel fog, waxaan doonayaa in aan ku galo. Kadibna godkii waxa uu soo saaray iftiin. Iftiinkiina ninkii ayaa u qaaday. Waxa uuna dhex geeyay godkii gudihiisa. Ninkii markii uu soo galay meeshii waa uu yaabay waxa yaala. Waa uu qaadan waayay meesha waxa yaala hantidii adduunka. Waxa yaala dahab, lacag, wax walba oo hantiya. Ninkii waxa uu yiri waxa dadka meesha loogu laayo waxaa iska leh dad tuuga ah oo soo xada dahabyada iyo hantida kale dadka. Wixii ugu yimaadeen waa ay ku laayaan show. Ninkii waxa uu isku qabtay inuu dahabkan qaato iyo inuu iskaga tago. Kadib markuu cabaar isweydiiyay inuu qaato iyo inuu iskaga tago ayaa waxa uu damcay inuu iskaga baxo godka intaanay ugu imaan raggii 3 oo aanay ugu dilin. Waxa uu yiri
godkaygiyo waa anigii isfur waxaan doonayaa in aan ku soo galo. kadib godkii waa isfuri waayey. wax kalaa lagu furaa, hadal kalaa lagu furaa. ninku maanu ogeyn hadalka lagu furo. kadibna waxa uu yiri garan maayo hadalkan waa inaan ugu dhuntaa sanduuqa dabadiisa si ay hodhow marka ay usoo galaan ee ay baxayaan aan u dhageysto waxa ay leeyihiin. kadibna ninkii waxa uu ku dhuntay sanduuqa dahabka dabadiisa. cabaar markii uu ninkii ku jiray meeshii ee sanduuqa dabadiisa ahayd ee uu sugayay saddexdii nin, waqti badan ayay qaadatay. saddexdii ninna cabaar kadib xoogaa markii ay maqnaadeen, albaabka waxaa kasoo muuqday iftiinkii. mise waa saddexdii nin. saddexdii nin ayaa soo galay godkii. kadibna waxa ay yiraahdeen alaabteeni waa ay nabad qabtaa, cidna maanay soo gelin, waa inaynu iska laabanaa oo aynu doonanaa dahabkii. kadibna ninku waxa uu rabay inuu dhageysto hodhow waxa uu ku dhahayo ninku albaabka. ninkii albaabka waxa uu ku yidhi albaabkow isfur, waxaan doonayaa inaan kaa baxo, banaanka ayaan rabaa. kadibna waxaa soo baxay iftiinkii waa una qaaday. kadibna ninkii waa maqlayay si dhaqso leh ayaa ugu yiri albaabkaygiyo waa anigii isfur waxaan doonayaa inaan banaanka u baxo. kadibna iftiinkii ayaa soo qaaday waxa uuna geeyey dibadda. ninkii waa uu soo tegay. waxa uu u yimi ninkii tuulada la deganaa ee ay saaxiibada ahaayeen. ninkii ayaa uga dhacay sheekadii oo uu uga sheekeeyey. wuxuuna ku yidhi godkii nooca ahaa waxaa jooga 3 nin waxaana ku jira dahabkii adduunka. ninkii hunguri ayaa qaaday. waxa uu yidhi alla aniga ayaa tegaya oo kasoo guranaya dahabka ee ii sheeg waxa aad ku tiri markii aad gelisay. ninkiina waxa uu ku yidhi war waa 3 nin oo walwaalan oo dadka laaya, iska joog waxbaa aadin. ninkii waa uu ka diiday hadalkii. wuxuu ku yidhi ilaa waan aadayaa godka, ii sheeg adigu waxa aad ku tiri markii aad gelisay. ninkii markii uu ka diiday ayaa u sheegay. waxa uu ku yidhi waxaad ku dhahdaa godkaygiyo isfur waa anigii waxaan kaaga imi meel fog inaan ku galo ayaan rabaa. kadib ninkii wuxuu ku yidhi waxaan rabaa oo aan jecelahay inaad iska daysid inaadan aadin godka, waayo waa lagu dili karaa. ninkii ayaa yidhi war waa caadi, tuugo haddii lasoo xado wax dhibaataa kuma jirto. ninkii isagoo faraxsan oo isla dahab badan ayaad helaysa ayaa uu meeshii yimi. godkii markii uu yimi ayaa waxa uu xasuustay hadalkii. kadibna wuxuu ku yidhi godkaygiyo waa anigii isfur waxaan doonayaa inaan ku galo. adigu wuu khalkhalay hadalkii ayaa ku yidhi. laakiin godkii waa uu fahmay markii dambe. godkiina waxa uu soo saaray iftiinkii waa uuna galay godkii gudihiisa. ninkiina aad iyo aad ayaa u farxay oo niyadda waxa uu ka lahaa maanta waxaad helaysaa dahab aad u badan. markii uu godkii soo galay waxa uu ku arkay arrin aad uga yaabisay. waxa uu arkay dahab ciida ka badan. ninkiina waa uu farxay. waxa uu yidhi alla maanta maxaan dahab ka dhargayaa, waxaan oo dahab anaa qaadanayo waan guranayaa. waxaa kale oo uu yidhi inta aanay raggiina iman waa inaan meesha iskaga baxaa oo aan cararaa. kadibna ninkii waxa uu soo qaatay dahab aad u tiro badan. markii uu yiri bax ayaa waxa uu albaabkii ku yiri albaabkaygiyo isfur waxaan doonayaa in aan ku soo galo. laakiin waxa uu xasuustay in uu intaas ahayd intii lagu galiyay ee aan ahayn intii lagaga baxay. waxa uu xasuustay inuu saaxiibkii ku yiri inta lagu galiyo kaliya ii sheeg. ninkii waxa uu ku celceliyay albaabkaygiyo waxaan doonayaa inaan ku soo galo isfur. laakiin waaba ku jira meeshii waxa la rabaa inuu dhaho waxaan doonayaa inaan baxee isfur, laakiin intaa garan maayo isagu. waxa uu ku celceliyay waa uu quustay. markii dambe waxa uu ogaaday in ay raggii ugu imaan doonaan meeshii. raggiina iyaga oo 3 ayaa ay maqleen hadalka meesha ka yeedhay waayna soo galeen godkii. kadibna waxay ku arkeen ninka meesha taagan. waxay ku dhaheen waar maxaad doonaysaa oo meesha ka rabtaa. kadibna wuxuu ku yidhi alla meesha waan kusoo khaldamay, cafiya mar dambe kusoo noqon maayo, cidna u sheegi maayo waxaan aan ogahay ee sida loo soo galo. kadibna waxay ku dhaheen war iska daaye, yaa kuu soo sheegay oo aad kuu soo sheegay in aad soo gasho albaabka, oo yaa ku siiyay furaha albaabka lagu galiyo. kadibna waxa uu alla anaa ogaayo waan qashay. kadibna rag waxay ku dhaheen maxaad ka soo doontay. waxa uu yidhi mar dambe u noqon maayo cafiya. laakiin raggii
kamaanay yeelin oo waa ay dileen. Midi ayay caloosha ka geliyeen. Meeshii ayaa uu ku dhintay ninkii oo uu naftiisa ku waayay. Wassalaamu calaykum.